wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah culamaa u diinka Soomaaliyeed ee sanadkan xajka soo gaaray. Kulan si weyn loo soo agaasimay oo sidoo kale uu ka soo qayb galay ergeyga dowladda Soomaaliya uga wakiilka ah ururka iskaashiga Islaamka Dr. Sheekh Cabduqaadir Macalin Nuur ayaa looga hadlay sidii adeega xajka sanadkan looga dhigo mid horumarsan. Dhammaan culimada ka soo qayb gashay kulankan ayaa si weyn u bogaadiyay sida ay u socoto howsha adeega xajka sanadkan, sida wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee u nidaamisay howlaha xajka. Wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay culimada ayaa ka codsaday in ay ka shaqeeyaan sidii loogu wacyigelin lahaa dhammaan xujayda Soomaaliyeed iyadoo laga shaqeynayo midnimadooda.